Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalahayga soo dhawaada. Waa walaashiin Fadxiyo mar kale idinku soo laabatay iyo muuqaal kale oo cusub. Soo dhawaada ayaan idin leeyahay. Maanta waxaan idin wadaa alaabtaas halkaa igu diyaarsan eed arkaysaan. Waxa weeyaan cuudad iyo fooxyo kala nooca oo kala duwan. Dhowr foox oo la isku dardaray iyo qaar aan isku dardarin baa ayaa ku jira meesha. Halkana waxay noo taala waa sinjibiil baalkana noo taala. Sinjibiisha waxyaalo fara badan baan isticmaalaa, laakiin maanta timaha ayaan rabaa inaan saliido uga samaysto. dee waanan isticmaalnaa, sida kaleba shaaha waan ku darsanaa. Maasha Allah, soo dhawaada. Halkana waa cuudad iyo fooxyo kala duwan oo kala nooc isku soo dardaray. qaar kale oo badan oo kusii daray insha Allah. Halkana rosemary ayaan ku hayaa. Halkana waxaan ku hayaa shadaabka guriga la sudhaa. Wasaqad iyo waxyaalahaas ayuu fiican yahay. Kijad iyo meelahaas la iska dhigtaa. Biyaan dabada u gelinayaa, deetana kijadan dhigayaa. Rosemary-gana waxaanu isticmaalayaa timaha ayaanu isticmaalayaa. Ma fahanteen, xawaashna waa loo isticmaalaa. Cuntada hilibka lagu darsadaa. laakiin anu imika waxaan soo gatay waxa weeyaan xawaash. Waxaan ka dhiganayaa spray baan ka dhiganayaa, saliidna waan ku samaysanayaa. Ma fahanteen, soo dhawaada walaalahayga qaaliga. Caag baan soo qaaday, bun baan halkaa ku soo riday, bun baan halkaa ku soo shubay. caagad kale haddaan soo qaaday, xulbad ayaan iyadana ku soo ridayaa. xulbad way fiican tahay, fiitamiino badan bay leedahay aan la soo koobi karayn. Maasha Allah, xulbada aad u wanaagsan tahay. halkaana xulbadii ayaan ku soo rogay. caag kale ayaan soo qaatay, isagana waxaan ku soo ridayaa qoondar ama saliid ama flaxseed, hadba sidaad u taqaano ayaan kaana ku soo riday. ima wada qaadayo markaa inbaba iga hadhaysa. Maasha Allah, kaana halkaas ayaan ku soo riday. haddana waxaan soo qaatay kaloorad uunsi ayaan ku soo ridayaa. kalooradaasina xabad uunsi ayaan soo jajabiyey. markaa intay ka qaado ayaan ku soo ridayaa. uunsigii iyo cuudadkii iyo waxaasan doonayay maanta inaan idinla wadaago sida aan u habaysto, in hal mar u soo qaato. Ma fahanteen, markaa uunsiga kan waa kii guriga. shukri dheer weeyaan uunsigani. deetana waan soo jajabiyey. kaloorada ayaan ku soo riday. mar waa inaad uunsi shidaa, mar waa inaad wax kalo nooc kala guriga ku shidaa. maasha Allah, tabaarakallah. anigu sidaasaan jecelahay. intii ila midkaana commentiga igula wadaag. markaa kaloorada intii kale bacda ku hadhayna meel kale ayaan ku shubi doonaa insha Allah. baasha yar baan ku shubayaa, inkastuuna qaadayn haddana in kale ay iga sii hadhaysa. maasha Allah. wakaa maanta udgoonka ayaa idinla qaybsanayaa. guriga lagu shidayey, hadda waa kii guriga lagu shidaayey. ma fahanteen, waxbayaa hadalka idinku daalinine. intii kalaan soo qaadayaa. cuudadkii iyo fooxyadii isku jiray. waxay u wanaagsan yihiin fooxyadan iyo cuudadkani. waxay u fiican yihiin guriga markaad soo masaxdo ayaad bug ku siinaysaa. maasha Allah, tabaarakallah. guriga gebigiisuba waxaan ku leeyahay udgoon ayuu noqonayaa. horena ugama baxayaan. ma fahantay, marka dhowr foox la isku daro, cadar lagu daro, uunsi lagu daro, maasha Allah, tabaarakallah, udgoon ayuu noqonayaa. gurigaad markaa kusoo shida, maxaad u malaynaysaa? 3 cadar oo kala nooc ayaan kusoo daray. mid waxaan kusoo darayaa cuuda. cadar cuudkaasi aad buu udgoon yahay. markaa isaga qurada cadar cuudka waan ku wada darayaa. aad bay udgooneynaysaa. udgoon ayay ka dhigaysaa alaabta. markaa saas kugu wada dardaro ayaan saas kugu walaaqayaa. uunsigii baa ku jira, fooxyo kala duwan baa ku jira. ma fahanteen, waxaa ku jiro kala cuud. markaa walaalahayga qaaliga, waxbaya hadal idinku daalin. saas ayaan usoo diyaariyey. weelkoogii ayaan kusoo wada shubay. kadibna waynu ku qiijisanaynaa, waabanu shidanaynaa. maasha Allah, tabaarakallah. udgoonka anu aad baan uga helaa. ma fahanteen, idinkana waxaan rajeynayaa inaad fooxyada isku soo dardarsataan, cadar yar ku dartaan, guriga markaad soo masaxdaan oo kale bug ku siisaan. markaana ciyaalkiiyo dadka waaweyn iyo waxaas aanay joogin qolalka gaarka ah,
kama go ayaan ku leeyahay gogashu ku dhagay udgoonka wadyaabasa marka intaas idin la wadaagayay walaalahayga qaaliga intan muuqaalka xiga ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa amaana Allah iyo is arag dambe oo xiiso leh. Assalaamu calaykum.